dee waa anagii soo qaadanay miyaan wadayaa uun hay waad wadaysaa ilaa yawmidiin baa aqoonta la wadaa. jaamacadda aadna aadan ayaa sanadkii labaad oo xidhiidha waxay qabatay barnaamijka tartan cilmiyeedka rabadaanta ee dugsiyada sare ee Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay barnaamijkaasi 200 oo arday oo sanadkani ka baxaya dugsiyada sare. barnaamijkan oo isugu jiray tartan cilmiyeed iyo muraajaca ardayda lagu sameynayo waxbarashadii ay soo dhigteen ayaa tartankaasi waxaa ku guuleystay 10 arday oo kala ahaa 5 hablood ee ugu sareeyay iyo 5 wiil ee ugu sareeyay. muhiimadda tartankan ayaa waxaa ka warramay mas'uuliyiinta jaamacadda aadna aadan macallimiintii wax u soo dhigtay iyo mas'uuliyiin kale. tartankii aan u qabanay ardaydaas oo ay ka soo baxeen 5 wiil iyo 5 gabdhood oo aynu maanta halkan ku abaalmarin doono haddii aan la yiraahdo. waxa kale oo mahad celinayaa maamulayaasha dugsiyada sare ee halkan inala jooga dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin. barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ay jaamacaddu ugu tala gashay in ay ku kaabto oo kor ugu soo qaado garaadka iyo waxbarashada ardayda khaasatan ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ah. seasonkan amba doorkani waa doorkii labaad ee jaamacaddu ay waxa weeye u qabato ardaydana waxa weeye runtii xiise iyo runtii dadaal fara badan ayay kala kulmeen oo waxa weeye midhaheedii ay ka heleen. barnaamijku wuxuu ka koobnaa 2 qaybood. qaybna waxay ahayd in revision loo sameeyo ardayda oo jabtaradii ay dhigteen loo muraajaceeyo iyadoo loo soo koobayo imtixaamaadkii GC-ga hore la qaadayna la tuso ardayda qaabka imtixaankaas u diyaarsan yahay iyo su'aalaha kala duwan ee ku jira iyo qaabka su'aalaha looga shaqeeyo noocyadooda kala duwan. barnaamijku waxa kale oo lahaa qayb labaad oo ahayd tartan ardaydu ay ku tartamayeen aqoonta dugsiga sare ee ay dhigteen. tartankaasi maraaxil badan buu soo maray 5 ciyaarood buu ahaa. waxa ka qayb galay tiro ardayo 200 arday ku dhow ka qayb galay 4 group oo min 50 arday ka qayb galay. group walba waxa ka soo baxayay 5 arday ugu sareeya. 4ta group markay min 5 arday ka soo baxeen 20kii arday soo baxay ayaa haddana dib u tartamay oo 20kii arday waxay noqdeen 11 hablaa iyo 9 inamaa bay noqdeen. 11kii hablaana gaar baa loo tartansiiyey 9kii inamada ahaana gaar baa loo tartansiiyey. koox walba 5tii ugu sareysay baa markaa soo baxday oo hablihii tartanka ka qayb qaatay guud ahaan 5 arday baa ka soo baxay inamadiina 5 baa ka soo baxay. marka 10ka arday baa guuleystayaal oo ay maanta xafladooda halkan u fadhinaa ilaa abaal mariyo. waan idin hambalyeynaa haddaanu nahay maamulka jaamacadda aadna aadan ardaydii 5tii hablood ee ku guuleystay iyo 5tii wiil ee ku guuleystayba hambalyo ayaanu leenahay. ardayda kale aan guuleysanna waxa iyaguna aanu dareensannahay inay iyaguna dadaaleen haddii ay guuleysan waayeenna ay ka faa'iideysteen. waa barnaamij laga faa'iideysanayay imtixaanadii hore ee aanu samaynay la samayn jiray ayaa dib laydinku celinayay oo dib laydin siinayay. marka waa waayo aragnimo si aan maalmaha imtixaanku aanay fajaciso iyo ku soo boodo aanay kuugu noqon oo aanad argagixin ayay naga ahayd. ardayga ka qayb galay ee dhigtay casharadii halkan lagu bixiyay isagoo kuwii iskuulka soo qaatay imtixaanadii iyo systemka ay u dhacayaan macallimiintu ay uga shaqeeyeen haddana mar saddexaad istijaabiyey oo tartanka galay waxa uu ka dhigayay arday revision ku wada sameeyey dhammaan wixii maadooyinkii halkan lagu tartamayay ayuu ka dhigayaa. hadafkuna kaasuun buu ahaa. gabigeennu waynu wada guulaysanay. waxaan idin leeyahay hambalyo. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay waalidiinta ardayda jaamacadda aadna aadan u qabatay tartankaasi waxaanay u mahadnaqeen maamulka jaamacadda aadna aadan. aadna aadan iyo jaamacaddeeda iyo maamulkeeda halgan faran badan bay ugu jiraan bulshada reer Somaliland. ilaahay ha ku guuleeyo. ilaahay xasanaadka miisaanka maalinta la isxisaabinayo darajada ugu sareysa aclaa jannatul firdaws ha ku casuumo ha ku guuleeyo. waxaa kaloo mahad celinayaa aadna aadan oo dagaal badan ku jirta oo dagaalkii jahliga ku jirta la dagaalamaysa oo dagaalkii qaranka ku jirta oo qarankii u dagaalamaysa oo dagaalkii wax aqoonta iyo waxbarashada ku jirta oo u dagaalamaysa oo dagaalkii caafimaadka iyo fayadhowrka ibn aadam ku nool yahay ku jirta iyadana waynu hambalyeynaa. eedow waxaan ku leenahay
allaha ku gargaaro. xubin ku hadlaysa afka ardayda oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxay u mahadnaqday mas-uuliyiinta jaamacadda adna aadan. waxaan mar kale u mahadcelinayaa macallimiintii sida habsamida lahayd ugu quruxda badnayd ee noogu dhigayay sidoo kale noogu muraajacaynaya casharada oo iyagu isku hawlayay iyagoo xiisada soo galay ka subaxii aan fasax ahayn oo iskuulada soo marayay haddana imanayay duhurkii xagga noogu dhigayay oon leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad hadii ka siiyo. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadashay Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyadoo dardaaran u soo jeedisay ardayda sanadkani ka baxaya dhammaan dugsiyada dalka. waxaan doonayaa inaad labadaa bilood ee idin hadhay inaydinaan isdhiganin oo odhanin dee waanagii soo qaadanay miyaan wadayaa uun hay waad wadaysaa ilaa yawmidiin baa aqoonta la wadaa waad wadaysaa oo waxaa laga yaabaa wax aad haleeli weyday ama macallimiintii kuu dhigaya ay haleeli waayeen waayo muddadu way xadidnayd oo bil kaliyuun bay ahayday inaad idinku iskiin isu dirtaan usii akhrisataan usii diyaargarowdaan oo weliba maadooyinka aad filaysaan inay idinku yara adag yihiin inaad kuwa idinku dib usii akhrisataan hamalyo kalgacaylaan idin wada soo dirayaa guulaysta hooyo ilaahay garabkiina ha galo xoogiina iyo caqligiina iyo oo xalaal ilaahay hadin barakeeyo. gabagabadii halkaasi waxaa abaalmarin iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey 10 arday ugu sarreeyay tartankaasi oo soo socday intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. guulad cunaabi MMTV